soo dhawaada asxaabi qoftan diyaaradda taajiriinta soo raacday sababtana wax kale ma ahan ee waxay rabtaa kaliya inay heshanin taajir ay isguursadaan xogaa kadib ninkan taajirka oo shiineeska ah diyaaradda soo raacayo iyadana way u baaqeen isagana wuu isaga tagaa sababtoo ah meeshan kursigiisa ma ahan oo kursigiisa waa dhinac gadaal haddana waxaa diyaaradda soo koraya ninkan kale oo lahay kursiga qoftan ku xigo waanu ku fadhiisanaa kursigiisa iyadana ma ku farxayso waxayna ka xanaaqsan tahay maadaama uu la soo fadhiista mid ciyaalka xaafadda u eg intuu ka yaabo wuxuu ku dhahaa marwo wax walba caadi soo ma ahan iyadana intay xanaaqday wuxuu ku dhahaa maya wax caadi ma jiraan aadana u mahadsan tahay intay dhinaciisa u soo jeesatay waxay ku dhahaysaa ma taqaanaa sababta aan diyaaraddan u soo raacay waxaan rabay nin taajir ah inuu dhinacayga soo fadhiisto laakiinse maxaa dhacay ma taqaanaa waxaa soo fadhiistay dhinacayga ninkii ay daacay muno sheegaysay iyadoo ku jeesjeesaysana waxay weydiinaya halkee dharkan ka soo gadatay isaguna waxaa weydiinaya sug adiga maba ku fahmine ma waxaa qaybta VIP da u gadatay keliya ma waxaa rajaynaysa inaad nin la kulanto waxay ugu jawaabay waa saxan tahay weliba nin taajir ah taasna maalin maalmaha ka mid a way ii shaqay doontaa midkaana isagoo yaaban xoogaa kadib waxaa diyaaradda soo koraya gabadhan kale midaan waalana waxay isku diyaarinaysaa inay seexato maadaama diyaaradda qorshihii ay u soo korto dhan uu ka fashilmay midkan dhinaceeda fadhiyana wuxuu bilaabaa gabadhii cusbeed oo diyaaradda hadda soo koraysa inuu la sheekaysto labadooda oo isla sheekaysanayo sheekadana ay meel dhex u marayso ayaa waxaa soo kacaya midii waalneed kadib waxay ku dhahaysaa idinka maxaa idinka qaldan ma walin ka seexa kara miyaa maxaa u sheekaysanaysiin haddaba waa idiin sheegay idinkoo sheekaysanaya mar dambe haddii aan idinku soo kaco waxaan uga caa shaqaalaha diyaaradda sidaas markii ay ku dhahdana midkaana qorshe keenayo taleefankiisoo soo bixinaa fariino inta ku qoro wuxuu u dhiibaa gabadhii oo la sheekaysanaya iyaga oo sheekadooda iska wato taleefankana fariimo isugu qorqoraayo ayaa midkan qosol ka soo fakanaa midii waalneedna way ku soo kacaysaa kadib shaqaalihii diyaaradda intay u wacdo ninkan u imaanaa wuxuuna dhahaa dhibaato maa ku haysato waxay ku dhaheen ninkan aad u jeedid aniga cusbada igu kaakiciyey isaga dhan intaa iga rirtid waxaa geysaa qaybta dadka faqiiriinta waa meeshuu ka tirsan yahay xoogaa kadib gabadhii kale qorshe soo jeedinaysa waxayna dhehaysaa ka waran haddaa kuraasta kala bedelan aniga gabadhaas ugu dambeyn labadooda kuraastay kala bedelanayaan midkaana waa siduu rabay sababtoo ah qoftii uu la sheekaysanaya u soo dhowaatay xoogaa kadib qoftii waalneed way seexatay kuwaana ilaa iyo hadda taleefankii ku sheekaysanayaan weliba iyagoo isla fadhiyo diyaaraddii markii ay soo degtayna labadooda waxay ka sheekaysanayaan waxyaabaha ay qabtaan maadaama ay hadda kala tegayaan gabadhu waxay dhehaysaa waxaan ahay madaxa shirkad iibisa alaabta ay ilmuhu ku ciyaaraan midkaana markiisiyaa la gaaray wuxuu dhahaa waxaan leeyahay kambani lagu magacaabo whitecap gabadhaana markii ay kambaniga magaciisa maqasho waxay dhehaysaa ma waxaa ka sheekaynaysaa kambaniga caanka oo malaayiinta dollar joogo wuxuu ku dhahaa ka waran haddaa ku dhaho kambanigaas waxaan ku bilaabay gurigayga weliba waxaa ka shaqaynaya 2 shaqaale oo keliya iyaduna waxay weydiinaya haddaba waxaad ii sheegaysaa inaad adigu tahay Kik Lewis wuxuu ku dhahaa waad saxan tahay midii waalneedna magaciisa ay Google-ka ku baaraysaa waxayna arkaysaa inay ninkaan lacagtiisa 20 bilyan kor u dhaafayso intay soo istaagtay waxay taagan tahay qof iyo kursigayga mii soo celi kartaa isagiyaa u jawaabayay wuxuuna ku dhahaa kursigan maxaa ku falaysaa waxaa fadhiya ninkaan cabtooyga ah oo wax matarahay waxay weydiinaya arrintaas ma dhaba u qaadata aniga waa kaftamaya waxaas kaftan le iga ahaayeene xoogaa kadib waxaa diyaaradda soo koraya niman boolis ah qoftaana waxay ku dhahayaan marwa mana soo raaci kartaa markii ay weydiisa waxay ka rabaana waxay ku dhahayaan adiga tikidkaaga inuu qaldan yahay laga yaabaa sidoo kale lacag badan inaa xataa lagaaga shakisan yahay sidaas darteed oo soo raacay iyadoo la sii jiidayay waxay bilaabaysaa inay ninkii nambarkeeda u yeeriso waxayna dhehaysaa isoo qabo